daawade ma kula muuqataa in komishanka doorashooyinka qaranku inay ka cagajiidayaan inay ku dhawaaqaan doorashada xaqa ah ee madaxtooyada. komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland waxay kulamo gooni iyo sidoo kale xog waraysi la leeyihiin daneeyaasha siyaasadda. maanta waxay la kulmeen xisbiyada qaranka ee Somaliland iyo sidoo kale ururada siyaasadda. dhammaantood waxay weydiinayaan bal aragtida ama fikirka ay ka aaminsan yihiin inay Somaliland ka dhacdo doorashada daneeyaashu ay ku kala aragtida duwan yihiin ee madaxtooyada iyo sidoo kale ururada. sidoo kale komishanka doorashooyinka qaranku maalintii shalay ahayd waxay la kulmeen baarlamaanka Somaliland hogaamiyaashooda sida gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo sidoo kale kusimaha jagada gudoomiyaha ee golaha wakiilada Giire oo uu helinayo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada Cali Xamed Jibriil. dhammaantoodba komishanka doorashooyinku waxay ka codsadeen inay la wadaagaan aragtida ay ka aaminsan yihiin ama wixii ay aragti ama fikir ay ka qabaan dalka doorashada muhiimka ah ee la doonayo inay ka qabsoonto. laakiin taa markaad eegto muranba kuma jiro oo sidaad ogtahay doorashooyinka ama gaar ahaanba doorashada madaxtooyadu waa dastuuri. qofna kuma muransana ama qofna kuma qaldi karo doorasho kale maadaama ay tahay doorasho uu dastuurku jireeyay in 5 sanaba ay dalka ka dhacdo madaxweynuhuna xilligan uu ku fadhiyo muddo kordhin sharci darro ah oo aan la isla ogolayn. Muuse Biixi Cabdi cadaadis wuxuu saarayaa komishanka doorashooyinka qaranka sidii hore aan warbixinii hore idgula wadaagay wuxuuna ku qasbayaa inay qabtaan doorashada ururada siyaasadda taasi oo aan xeerkeedii iyo dhaqaalaheedii midna aanu diyaar ahayn. doorashada madaxtooyada sidaan hore kuugu sheegay waa dastuuri sidoo kale waxa diyaar ah xeerkeedii iyo dhaqaalaheedii. madaxweynuhuna muddo kordhin sharci darro ayuu kursiga ku joogaa oo aan la isla ogolayn. daawade haddaba maxay kula muuqataa komishanka doorashooyinka xilligan waxaad moodaa inay ka cagajiidayaan inay ku dhawaaqaan doorashada madaxtooyada ee dastuuriga ah taasi oo xeerkeedii iyo dhaqaalaheediiba ay gacanta ku hayaan komishanka doorashooyinka qaranka. waxay u muuqataa in dadku ay ku murmayaan cadaanka iyo mugdiga taasi oo ka dhigan in la doonayo in meel la iska dhigo dastuurkii Somaliland ay ku heshiiyeen ee isku maamuleysay. waana cadaalad darro xilligan u muuqata in komishanka doorashooyinku ay muranba gelinayaan doorashada xaqa ah iyagoo oo arkaya xeerkii iyo sidoo kale dhaqaalaheediba inuu diyaar yahay doorashada madaxtooyada dastuurina ay tahay. 24 bishii 9 2022 ayay komishanka doorashooyinka qaranku waxay ku dhawaaqeen inay qaban doonaan doorashada madaxtooyada muddo 9 bilood gudaheed. bishii la soo dhaafay 30keedii ayay ku beegneyd xilligii ay shacabka Somaliland u ballan qaadeen komishanka doorashooyinka qaranku inay qaban doonaan doorashada madaxtooyada. balse waxaad moodaa arrintaasi inay ka dhutinayso oo ay ka cagajiidayso cabsi ay ka qabaan madaxweynaha xukunkiisu dhamaaday Muuse Biixi Cabdi oo hanjabaad iyo sidoo kale culays cadaadisa ku haya komishanka doorashooyinka qaranka. Muuse Biixi Cabdi waxa uu isticmaalayaa laba kaadh. kaadhka koobaad waa inuu shacabka ku marmarsiyonayo ama shacabka uu ku madadaalinayo muddo kordhin aan la isla ogolayn oo sharci darro ah taasi oo uu doonayo inuu daah u noqoto uu iskaga dhigo doorashadii lagu dhawaaqi lahaa ee madaxtooyada. kaadhka labaad ee Muuse Biixi Cabdi isticmaalaya waa in komishanka doorashooyinka qaranka dhexdooda uu ka abuuro carqalad iyo sidoo kale muran taasi oo keeni karta in qaarkood ay iscasilaan. haddii uu labada tallaabo ku guuleystana waxa suuragal ah Somaliland inay ka dilaacaan ama ay ka dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed kuwaasi oo isu rogi kara dagaalo sokeeye oo aan la garanaynin halkay ku soo dhamaan doonaan. ma ogtahay daawade in Somaliland 32 sano kadib ay ku jirto khatar taasi oo jiritaankeeda su'aal gelinaysa.